ku soo dhawow qaybta saddexaad ee qisada curad. Waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto si uu dad badan u gaadho. Subscribe channelka saar. Haddii aanad hore u soo daawan qaybihii hore ee qisadani curad, way adag tahay inaad fahanto. Sidaas daraaddeed waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad soo daawato qaybihii hore si aynu isla anbaqaadno. Waxaanad ka helaysaa qaybta hoose ee description-ka. Haddaba ha inoo bilaabato qisada iyo qaybteedii saddexaad. waxay hadba xaalad aanan anigu arag dadku ka sheekeeyaanba anna la yaab iyo fajac ka sii qaado sida ay iga warbixinayaan ayaa ugu dambayn la ii su'aalay maxaad la oraday. Waxaan eegay wejiga qof walba oo i dul taagnaa. Inta aanan jawaabinna waxaan qiimeeyey sida ay i rumaysan karaan haddaan xaqiiqada aan u orday u sheego. Haddana waxaan ka fursan waayey inaan xaqiiqada u sheego dadka intaa la ega jawaabta iga sugaya. Waxaan u sheegay inaan gabar ceyrsanayay iyagoon hadalka iga wada sugin ayay dhammaantood qosol la daateen. Maamada oo aad uga xanaaqday qosolkooda ayaa tiri aamusa bal wiilku hadalka ha dhameeyee. Gabadhu maxay ahayd ayaa la iiga fadhiyaa. Waxaan idhi waa 12 jir ma aqaano magaceeda. Haddana mar kale ayaa qosol loo daatay. Aad baan u carooday laakiin maamada ayaa i su'aashay magaceed gabadhaas. Waxaan idhi ma aqaano magaceeda iyo qofka ay tahay laakiin si aan u ogaado ayaan u ceyrsanayay. dadkii wajiyadooda qosolkii uu ka guuray markiiba waxaa soo fulay wajiyadooda la yaab waxaana ku adkaatay inay fahmaan hadalkayga. oo gabadhu miyaadan aqoon u lahayn ayay maamadu i su'aashay. Waxaan idhi maya laakiin maxaad qofka ay tahay u raadinaysay oo aad u daba ordaysay. waa su'aasha ay tahay qasab inaan uga jawaabo haddana adag tahay inay dadku ila wada fahmaan. waxaan ka sheekeeyay in gabadha 12 jirka ah oo uu siday oday da ah oo ciraystay ay saqrixa xalay anigoo hurdo igu soo garaaceen guriga. haddana aan ka furay oo ay iyagoon isu kay sheegin iga tageen. hal mar ayaa shaydaanka la iska wada naaray. dadkii ugu qosolka waaweynaa badi dib ayay u gurteen. waxaa dhammaaday su'aalihii marba qof igu soo tuurayay. talo ehelkii ayay isugu laabatay. markiiba waxaa la amray in la egeeyo qolkayga dushana la igaga xiro. waxaana la doonay wadaadda igu akhriya 114 qur'aanka. waxaa timid habar caan ka ahayd xaafadda oo faalisa ah. waxay tiri ninka jamaahiir baa dul saaran ee inta badda la geeyay biyaha dhanaan ee badda ha la waraabiyo ilaa uu soo matago. dhir aanay aadmigu cuni karinna ha lagu qasbo si ay u hadlaan. waxaa intaasba iiga sii darnaa markii koronto aan cabir lahayn la igu qabtay dhagahana makarafoonno waaweyn la iiga dilaaciyey oo aan noqday qof noloshii adduunba ka quustay. waddan aan lahayn dhakhtar dhimirka ah oo kala saari kara caafimaad qabka maskaxda aadmiga ayaa mar walba oo aan idhaah waan caafimaad qabaa waxay dadku ilahaayeen maxaad ku caddaynaysaa caafimaadkaaga. haddaba sidee isagu ku ogaade ama ay ku ogaadeen caafimaad daradayda. ha yeeshee waxaan anigu ku dadaalay inaanan waayin caafimaadkayga maskaxda maadaama jismigaygii kale si jaahilnimo ah loo jarjaray. 4 bilood noloshayda ma aqaan sida ay ahayd. xitaa kama wada sheekayn karo dhacdooyinkii isoo wada maray oo dhan. laakiin waxaan xasuustaa in xaafadaydii oo dhan la iiga magac bixiyey yarkii waalnaa ee dariska. qof walbaa inuu iga cabsado ama iga soo qaado sida ruux horar ah ayaa xoogaysatay. waxaan marna agtayda soo istaagin gabadhii aan dunida ugu jeclaa ee markana guurkanagu soo dhawaa. mar waan ilmeeyaa keligay marna waxaan idhaahdaa imise ayaa sidaada oo kale caafimaadkoodii laga xoogay. maalinkii ugu dambaysay oo la ii dhammaynaya qur'aan saarkii muddada ii socday oo haddaan xilligaas dushayda laga hadlina la igu celinayo korontadii iyo ciinkii qaraadhaa ayaan fikiray. waxaana qaatay go'aan ah in la iga dul hadlo. laakiin weligay xitaa ma arkin qof laga dul hadlayo. waxaan aad uga cabsanayaa inaan wax qaldo laakiin si walbaba intaas ayaa xal iigu dhow. qur'aankii wadaadada oo socda ayaan bilaabay inaan gariiro ama jareeyo aniga oo jilaya. hal mar baa la igu soo yaacay oo la iga qabtay. wadaadadiina qur'aankii ayay kor u sii qaadeen oo aayad walbaa 3 jeer ayay ku celinayaan. waxaa la bilaabay in la dhaho hadla yaa tihiin maxaad miskiinkan ka rabtaan. jidhka qaar baa ay xanuunaya oo ay si daran ii hayaan. haddana qosol baan isku celinayaa oo sida ay dadku daciif isaga yihiin baan la yaabaa. markay xanuunka iyo su'aashu iga bateen ayaan idhi adeerayaal waa annageena fariisiya. markaas ayuu wadaadkii yidhi fariisiya oo daaya farahana ka xidha. kadib baa la ii weydiiyey yaa nala hadlaya. haddaan sheego magac qof caadi ah waxaan ka yaabay in wadaad miskiin ah oo meelahaas ka dhow uu magaciisa noqdo.
haddana ma aqaan magacyada ay la baxaan dadka ka dul hadla. Sidaas daraaddeed waxaa uun mar afkayga ka soo baxsaday magac ah adeerayaal waa Sheekh Curad oo soo booqday wiilkiina. Markaas waxaa niyaddayda ku taagnaa odaygii dhibta i baday. Waayahay, Sheekh Curad maxaad ka rabtaa miskiinkan? Sida aan uga jawaabo su'aashan ayay ku xidhan tahay badbaadadayda. Sidaa daraaddeed waan u yara fikiray. Ugu dambaynna waxaan idhi adeerayaal Sheekh Curad wuu ku soo qaldamay miskiinkan. Haddana isagoo tagaya idinkaa u yeeray ee abad wuu naga fasaxan yahay miskiinka. Sheekh Curad haddaan ahayna markaan hadda ka baxo waan ka guurayaa aagan iyo qaaradda oo dhanba oo waxaan degayaa jasiiradaha bariga fog ee Australia. Idinkana nasiya waa daaliseen wiilkan miskiinka ah. Intaas markaan idhi dadkii way wada farxeen kadibna ka bax iyo baxay ayaa isxigay. Dadkaygii oo u haysta inaan hadda un caadi ahay ayaa iyagoo faraxsan i keenay guriga isla habeenkii u horreeyay oo 4 bilood kadib aan ku xisaabtamayo hurdo taam ah weeye. Laakiin abbaare kowdii iyo barkii habeenimo ama saqda dhexe ayaa ilinkaygii haddana garaac la mid ah kii hore oo kale aan ka maqlay. Waan naxay, naxdin daran weliba. Jiifkii waan ka booday. Istaag iyo fadhi midna kuma sugni. Weli iridda waa la garaacayaa. Waxaan si tartiib ah ugu dhaqaaqay dhanka iridda si aan u fahmo qofka uu yahay kan garaacaya. Saaxiib, halkaas ha inoo joogto qaybta 3aad ee qisada Curad. La soco qaybta 4 berri xilligan oo kale insha Allah.